بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أدبر مهضمية قلها وسيرها يبدأ حلوك عيكبا هاوشان قران قابتنا فرتي عيشو لو دغ كaro rag meel lagu xidhay oo leeyahay soo bixina ilaa tala keentaan ilaa wax soo saartaan waana xeer iska jiray Soomaalida dadka oo dhanba haday wax xukumayaan dad gor qaadayaan iyo haday tala adag xalinayaanba caalamka oo dhan waa la go'doomiyaa cid la doonayna maskaxda sheelaan oo inaan dadka la soo fargelin maskaxda wax kala soo jeedsan ayaa iska urfi adduunka oo dhanba qoroba afay bixisaba marka hadii afartan cisho waxa la idin xidhay oo meel cid la idin geeyay qaranku wuxuu naga soo yahay hawl badan iyo culays badan oo idinka idin saaran oo inaga idin saaran dabta intaynaan hawsha gelin inaynu ka sii tashana hawsha oo aad iyo aad u la faguro ahadno dabta inagoo fikir qura wadana oo meel qura wada socona oo si isku mid ah hawsha u qabanayna inaynu soo saaro waqtiga baan ugu yaraa waa teeda marka aad baan ku mahadnaqayaa waqtiga badan rag odayaala oo qol lagu xiray oo afar cisho xidhnaa ama inta soo caana maal aad baan ku mahadnaqayaa waa hawl qaran waxaan jecelahay inay bilow noo noqoto in wasaaradda waliba gudaheeda inta in leeg markay wax qabanayso kalka hore inta ay faraha la gelin isku ay tashato in sharciyada lagu shaqeynayo la eego habka loo qabanayo in laga heshiiyo tan wadar loo dhaqaaqo waayo way arag badan baa tusaay dadku hadaan marka hore sida wax loo qabanayo ka heshiin iyo aragtida sharciga lagu shaqeynayo hadaan laga heshiinin murab badan iyo kala cabasha yimaada iyo isla garasho waa marka taasaynu ka carareynaa waxaan noqon doontaa in dhaqan noqoto oo markii mid la shaqeeyo mar la subsado gudaha wasaaradda wali hay'ad waliba gaarkeeda ay soo subsato golayaasha kale qaranka saa kula shaqeyno ayaan leeyahay inuu noqoto dhaqan maanta beeshaan kulanay gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu yiri oo meel rag cid ka soo noqon waxaan ku riyaga waxa jecel cid ka soo noqoto wuxuu yiri deewaan sahan tagayay meesha la keenay waa kullu deem meel fiican oo iska nasanayaan ma iyagu qura la xanaanay rag kale meel loo yeeyo waa soo arag kale la soo arag baar darag waxa ahay kolka taad baan ku mahadnaqayaa waxaan mahadnaqayaa raggii hawshan ka qayb qaatay ee waay aragnimadooda inagu biiriyay waxaan si gaar ah u seenayaa professor Ismaan Sheekh Ahmed oo isagoo hawlihiisa wata aan kala hadlay Washington oo deegaan yahay malaha 4 sanadood dheeraad oo ku waxa kale iska dhigo kaale maanta dalka ku baahan waxa shaqaysi wax kale oday waatay maanta waan ku baahanahay rag badan ma la hadlay isaga mooyaane oo meel badan jooga oo ka doorayeen sidan u yimaadaan oo hawlaha bixiyaan Salman isaga u yimid forensic marka horeba oo wuxuu la shaqeynayay iskuulka shaqaalaha iyo marka uu iga aqbalay toosna uu yimid 3 shaqo afar shaqo joogana wuxuu soo galay hawshan marka aad baan ugu mahadnaqayaa si gaar ah waayo rag isaga la daadaha ka ugu cudur daar yana wuxuu igu yiri warniyo dhakhtarkaas aan ka maarmayno jiib xalada jiibiga ayaa ifado marka aad baan daasha ugu mahadnaqayaa hadalkeenu wuxuu ku koobnaanayaa dee maanta hawsha aanu qabanay inaynu hirgelino dee anagoo u baahanahay madax xukuumadda ka maqnaaya waxaan la baray maanta ee odayaashii waaweynaa yaasiinoo kale u leeyahay wax subaana barisay la sii taago waxay la tahay dee aniga ayaan goor isku qaldamayna waxa inoo balana inaynu mar walba wada tashano wax la isxuusino bariyahan dambe waxa aad inoo noqotay in laga xishoodo waxa ma garanayo waliba ninku hadii meel laga war magacaabo ama dhowr shahaadiyo wax qaato oo tayga isku geejiyo sidii gabaygii odaygii afqallo u sheegay dhowr lixkii waxa laga yaabaa inuu kaba xishooday wax la tilmaamo loo sheego ilaahayna quraankiisa ku sheegay oo xusuusiya xusuustu muslimiintay anfacday marka mar walba iyo saacad walba in wax lagu xisoo baahantay iyo wax lagu sheego iyana wax kororsato waxaana sunnaa qofku intuu aqoon kororsado ay bay hogaaminta hagaagisa ama akhri ama dhageyso waxa weeye kulka weerarka ka dhigana caado waxaan isu taagayaa qodobka inaynu ku noqono midnimada iyo wada tashiga
iyo mar walba ilaa heerka hore ee hoose department hoose aad iyo aad baan marnaa ku mahadnaqayaa dhammaanteen iskuulka waa mahadnaqayaa gulida hagoog iyo iskuulkoodaas oo wallaahi runtii qiimo badan noogu fadhiya oo cilmi badan haya waxaan u mahadnaqayaa qolada garsoorka cadaaladda ka shaqeysa looyaro ama yaqaan guud oo anigu intii imika wiiganaan la shaqeynayay aan aad markaa ugu mahadnaqayo waayo waxaad moodaa wixii shuruuc dalka yaallay in la diyaariyey oo xirnaamintii shaqada dowladda la diyaariyey oo ad soodhanaysa haddii waxaan la diyaariyey maxaaba adiga jeer u yimaadaa khilaafka iyo isabkarawaaga yaad soodhanaysa ma dadkan wax akhriyey miyaanay gaarin qoladaana kaydka ay noo hayaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada jaamacaddeena ka soo baxee sharciga yaqaana inay badan yihiin oo si fiican u hayaan sharcigii iyo xusuustii kulba leadershipka dalku waa nabad waxaanu halkan baa uga dirnaa dhammaanteen xukuumadda oo dhan iyo guddoomiyaha golaha wakiiladuba walaalaha isku dilaya koonfurta bari ee sool magaalada qoriile dagaalkaasi dagaal loo baahayay maaha dad badanna wuu ku dhintay sanado badanna wuu socday 3 dalna wuu saameeya innaga somaliland iyo soomaaliya iyo ethiopia wuu sameeya waa halkay 3 xad isku yimaadaan waxaanu baa qudaraynaa dadka walaalaha halkaas isku dilaya in caqligu shaqeeyo oo aanu dil waxba kordhin muddo ka badan san la ii sheegay 10 sano oo dagaalkaas socda oo kolba intuu dabaha daba soo horaya kol walba ugu yaraan 10 20 intaas qof baa ku dhintay intaas ku dhaawacantay sabab aynu sidaa dagaalka riiqda dheer isugu dhimano oo dadkaas u dhintaana garan maayo wixii muslina iyo Soomaali ah ee wax garan waxaan leeyahay arinta laga gulmado oo dadka isdilaaya waa dad Soomaaliyeed waa Somaliland waa Soomaaliya waa kilashada Ethiopia waa isku family uun xadka ku badan talaaba iyo muslimiinba in loo gulmado arinta xal laga galo waara oo lagu dabiyo ayaanu baqaa u direynaa wax garadka 3 dawladood ay saameysaba diyaar baan u nahay qaybteena nabadda ka qaadano oo ay Soomaaliland nabadda hogaamisa waxa kale oo maanta halkan iyo dhibaatooyin ka dhacday wajaale xaafad baa gubatay dan yara waliba oo intii dan yarta ahayda 7 guriye ka badan wixii xoolo hoos yaallay waa gubteen oo waa shaqeeyaan nasiib wanaag halka cid ku dhiman isla maanta 10kii guri gabri ku yaal ayuu doo qabsaday hooyadan la ka tagtay carruurtii guriga kaga tagtay shan bay ahaayeen mid baa ku dhintay gubtay dadka ka baxay inta waa tacsiideynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa dabdabiska Somaliland oo hargeysa booraba ka gurmaday 3 habeenimo waxaan u mahadnaqaynaa ciidanka booliiska oo si wacan soo abaabulay ilaa taliyahooda waa barigii ka gaaray dadkii gurmadkii ugu horreeyay ee ka baxay hargeysa oo taliyahooda Gabriel Fadal iyo barmadkii iyo dabdabiskii iyo kuwii booraba u dhawaa iyo kuwii gabiray mar isbiilka ugu badan ku gaaraan meeshii waxa gacan weysay dadka wajaala degan isagoo camada shaqeynta saari magaalada ku badbaaday oo magaalada intii weyneed looga gaaray dabka oo dadku iska xidhay darbi ka noqdeen mid baaldi sida mid gaariga jiida mid alaab ka gura sida la sheegay waxa in yar dabku ku jirsay bakhaar ay ka buuxaan nafta iyo petrol oo gacmaha ka gureen 4-5 habeen meelaha laga saaray shaqeeyo qoladana waxa bareeyna in gurmadka iyo fajiraanta ay raahno waxaan u rajeynayaa hawl wanaagsan dadku rajo badan bay naga qabaan xukuumadana inta halka fadhiyo rajo badan baa laga qabaa dhibaatada waxa dhacday markay rajada iyo wax qabadku isgaar waayaan iyadoo duruufo ma jiraan laakiin inaga waxa laga hor ilaahaya inuu inta ugu badan dadaali doono wixii dalka qabsooma shacabkuna abaalka ma qariyaan haddii ay arkaan wax toosan wayna gargaarayaan dee shaqo wanaagsan waxay noo balanaa inuu qaranka wada shaqeynaa inagoo midaysan isku jaa wixii khilaaf yimaadana aynu wada xalino oo ay dawladdu ahaato far kaliya qofkii wax dib aad weyn shaqooyin kala gaar ah qabanayna wasiiradaas qiyaas ku dhacay xafiisadooda annaga wasiiradaas ku dhacayna baarlamaanka ayaa reer soo hormaraya qolada garsoorka la soo hormaraya ciidamada hogaamintu waa la xalilaa mashkalada inay mashkaladu dadkii xukumayo u talowda maaha marka waxa imanaya shaki iyo shaydaan laakiin dadkani waa inay iyagu gudahooda ku qabtaan wixii mashkalada oo taabartaan haddii uu taabara weyno waxa ma hogaamin karayno dad loo sheegay ma tiidin intiina badan waa soo marteen hawsha waa inoo balan
iyo shaqo daacada iyo dalkeenu si wanaagsan u adeegno. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.